السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. dumarka ama haweenka ugu fadli badan ayaan halkan kusoo qaadanayna caawa. daawadayaasha qiimaha badan, dumarkeena Soomaaliyeed yay ku daydaan? waa su'aal ku socota oo maskaxda daalinaysa gabar kasta oo muslin ah, khaasatan gabar kastoo Soomaaliyeed. dumarka ugu fadli badan waa Maryama binti Cimraan, آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، iyo فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. nabigana wuu tilmaamay sida ragga allah u dhammaystirmay, dumarkii ilaahay uma dhammaystirin ilaa dumarkan laga soo reebo mooyaane, oo aasiya binti mazaaxim oo imra'ati fircawn ah, oo maryama binti cimraan, oo khadiija binti khuwaylid oo ah hooyadeen khadiija, iyo faadima binti maxamed sala allahu calayhi wasalam. waa su'aal gabdhaha muslimaadka maxaa u diiday inay gabdhahaasi ehlu khayrka inay ku daydaan oo ay waddadooda raacaan. walaashayda muslimadda ah, ku dayo kuwaas, iska dhaaf gabdhaha ama hablaha gaalada aad dhaqan iyo labis iyo ficilba aad ugu dayanaysa. markaan leenahay dhaqan waxaan leenahay dhaqan ka wanaagsan oo dhaqan soomaaliyeed oo dhaqan islaam ah. labisna ma ahin gabadha tv-ga laga xayeysiiyey labiskeeda ama tan fanaanada ah inay ka labis fiican tahay, iyo ficilba waxay iyada suubisay inaa suubiso buruukay xirata, buruuka inaa xirata. in buruukada la xirto sharciga islaamka waa mamnuuc, lamana ogola, lacnadii rasuulkana kugu dhacaysa. timaha ilaahay ku siiyey quruxda badan inaa hagaajisaa lagaa rabo. mawduuc inaan ka baxo ma rabo. ficil iyo dhaqan iyo labisba inaynu ku dayanno waa inaynu iska ilaalin. dumarku waxay u qaybsamaan laba qaybood: kuwa toosan oo xifdiya diintooda, iyo kuwa reer magaal isu arko. kuwa reer magaal ah waa bayzani, waa bayzaniyad isu aragto oo dhan raacata ah. dumarka toosan oo xifdiya diintooda waa ku ammaanan yihiin, ilaahayna ha u ziyaadsho. waxaan leenahay jazaakillaahi khayran, ilaahay khayr fara badan ha siiyo. waan u ducaynaynaa oo qalbigaan ugu ducaynaynaa habeenii maalin. dumarka reer magaalka isu arka oo dhan raacatada ahna waan u ducaynaynaa, waxaan leenahay allah ha soo hanuunsho oo ha ka soo hanuunsho waddada qalloocsan ay ku jiraan. hadiga nebiga sala allahu calayhi wasalam magaalada daa'if markuu yimid oo dadkii ay dhibeen oo dhagax dhiiggiisa soo ka daadanaya layidhi nebi maxamed oo ummaddan labadan buurood dhexdooda ku jiro, iyagoo dhanba dusha ma laga saaraa? markaasuu yidhi maya, lacalla waxa laga yaabaa dhabarkooda in awlaad wanaagsan ka soo dumarkaas qaloocan. waxaa suuragal ah marka waan u ducaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala dhabarkooda ka soo saara awlaad wanaagsan oo ummadda muslimiinta anfacda. dumarku waxay ku daydaan hadba waddanka ay ama baycada ay ku nool yihiin. tusaale, gabadha ku nool yurub iyo america, waa arrin sax. waa arrintaas saameyn badan ee nagu leedahay bay'adan ku noolnahay, waana saameynta carruurta inta badan ay ku leedahay bay'aday ku nool yihiin. dumar dalbeedka ku nool surwaalka keliya bannaanka lagu aado qurux ayay u arkaan, ilaa man raxima rabbi, ilaa gabar ilaahay u naxariistay mooyaane. inay gabadheeda surwaalka gashata oo xijaabkeeda ka gorogsashata laa ba'as, wax diidan ma lah. laakiin waxaan ku diidannahay inaad ku dayasho aad ka dhigato kuwo muslimiin laakiin oo afka islaamka ah laakiin ficilkii aan haynin. mathal, qaaradaha sida gabdhaha carabeed qaar ka mid ah iyo eeshiyaanka oo surwaalka u arka haddaa salaada ku tukada, oo la yidhahdo marka hadduu surwaalka holo holof yahay haddaa wax dhib ma lahan. nacam, dhib waa leeyahay, wuxuu dhib u leeyahay nebigaa ka warramay, daliisheedana waan keeni doonaa insha allah. marka waxaan ku leenahay gabadha muslimadda ee soomaaliyeed, surwaal bannaanka lagu aado keligiisa kaas xijaab ma ahin. ya marka inaad shaati dheeraan wataa dhahdo surwaalaan gashtay sax ma ahin. waana inaan u sheegnaa hablaheenna ama gabdhaheenna ama inamadeenna dhammaantoodba inaan u sheegnaa oon ku niraahnaa surwaalkan aad gashanayso maalinta qiyaama isagoo laami ayaa lagu gelin. waa inaan u sheegno dhahna
nebi maxamed iyo qur'aanka wuxuuna amray inaan lagu yiri nebi maxamed yaa ayuha nabiy qul liazwaajika wanisaa almu'miniina yudniina calayhim min jalaabiib marka waa waajibna wada saaran annaga iyo adiga iyo idinka dhammaanba dadka mas-uuliyadda saaran inay ku dhacaysaa mas-uuliyaddaas oo waalidka halka marka waxaan leenahay bannaanka lagu aado qurux ayay u arkaan qurux maahan jirkeedu sawirayo surwaalka haddii lugaheeda yar yihiin iyo haddii waaweyn yihiinba waxay noqonaysaa kuwa la yiri walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda iyaysan muujin ilaa wixii markaas dadkii laga soo reebay oo waalidiintii iyo dadka la midka iyo gabdhaha muslimaadka mooyaane iyo ninkeeda looma ogola marka inay gabar surwaal bannaanka ku aada halka gabadha soomaaliyeed ee ku nool ay u aragto ceeb weyn isqaawinta noocaasa runtii haddii waxa ceeb aad u aragto ummad haddaad qaawan u timaado ood la joogto dhaqankoodii saaad ula yaabayso marka dambe waxay noqonaysaa inaad iyagoo kale aad la mid noqoto ama ka darnaato waxay dhihi jireen soomaaliya ku daya ama ku diin ma maqli jirta marka waaba ka darnaanayba hadda annagiyaaba sii dhaafnayba waxa ugu yaab badan hooyo carruur dhashay oo ku labisan surwaal ma waxaa la yiri markii aad isqaawiso waa hooyo keligeed ilmo haysata markaad isqaawiso ayaad gadmaysaa ama ducaaqabo ayaa cirka ka soo dhacaya arrinta saas maayo ilaahay markaad afrika joogtay kugu arsaaqay ood xijaabka ku wadatay markaad galbeedka imid ood surwaalka ku gashanayso rabbilcaalamiin waa joogaa meel kasta marka waa inayna gabdhaha noocaas iska ilaha hooyada waa inay noqoto hooyada ka waran noocaas samaynaysa gabadheeda maxay suuminaysa dabaqaab bay bannaanka ku aadaysaa nacam maxaa diidana gabdhaha bannaanka ku aado wax diidaya ma jira haddaad dhahdo tiib talyaana iska dhigayo wax ummadda fasaadiyo daliisheeda dhegeyso marka laa yajuuzu imra'a ma banaana an talbisa libaasa rijaal inay ku labisato dhar sida marka lima warada fi saxiix albukhaari sida ku soo arooray can ibni cabaas radi allahu canhuma allah ka raali noqday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam waxaa la naclado lucina mutashabbihiina min alrijaali binnisaa lacnadii waxaa ku dhacday oo naxariista laga fogeeyey ragga dumarka isu ageysiy rag gacanta bidix ka laafoonaya oo iska dhigaya oo zamankan waa zaman khatar ah masaa'ibtaasaa socota waalmutashaabihaati min annisaa'i birijaal iyo tan dumarka gabadha muslimadda ee ragga isu ekeysiinaysa oo timaha sida raggoo kale u jaranaysa oo maaragtay surwaalka bannaanka ku baxaysa xadiiskaas bukhaariya soo saaray intaas waa riwaayadaas waa lucina rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulka alla wuxuu lacnaday gabadha ku labisanaysa yalbis labis almar'a rajulka ku labistaa la lacnaday oo naagaha isu ekeysiya walmar'atu qofka dumarka ay ku labisanayso labsa rijaalka iyadana waa la nacday imaam axmed soo saaray waa abi daa'uud xadiiska horena bukhaari birijaal buu ku egyahay siiqadaas marka waxaad dareemaysaa arrintaas waa arrin khatar ah ha ogaato gabadha surwaal keligiis bannaanka ugu baxda inay lacnadii ku dhacday waxaadna noqonaysaa gabar rag isu ekeysiisay marka waa arrin khatar arrimahaasoo dhan marka aan ka soo hadalnay maahan inaan leenahay dad baa iska dhaadhiciyey haddii xijaabka la wata galbeedka laguma noolaan karo nacam gabdho badan baa xijaabkoodii ku shaqeeya oo wax ku barta oo jaamacado ku dhigta way ku ammaanayiin allah rabbilcaalamiina jazadooda janna ugu bedeli doonaa sababtoo camal kastood wanaagsan oo samayso ilaahay rabbilcaalamiin wuxuu ku siinayaa wanaaggeedu kugu abaalmarinayo hal jazaau lixsaani ila lixsaan haddaad wanaag fasho wanaag buu rabbi kugu gudaya subxaanahu wa tacaala waa waajib ku saaran oo waajib daruuri ahna la saaray inay gabdhaha jirkooda dabuulaan marka reer magaalnimona ma soconayso isqaawinta reer magaalnimona ma waxaba qaati ka joognayba markay xafladaha tagaan iyagoo xijaabnaya dharka tuuranaya kadibna intii kamera laga soo qaaday youtube la gelina ogow xumaan kastood aad ka qayb gasho ama jirkaada banayso ilaa qiyaama saaca way kugu soo noconaysaa way kugu soconaysaa videoga laga duubay meeqaa dhimatay oo facebook xumaan faafinayeen maanta xumaantoodii weli facebook shaqaynaysa walaasha muslimadda ahi ma isweydiisay weli masiirkaaga xaggee ayuu noqonaya rabbilcaalamiina ku mahadsano adduunyadan ku keenay laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala u degdega jidka khayrka u degdega wanaagga u degdega ilaahay waxuu jecelyahay addoommadiisii inuu u soo laabtaan allah wuxuu leeyay nabba cibaadii addoommadeeda haloo sheego aniga ayaa dembiyada dhaaf ilaahay albaabkiisi waa furan yahay raxmaddiisi waa waasic waxaan leenahay gabdhaha walaalaha noocaas ku jira ka soo laabta
ilaahay albaabkiisa 24 saac waa furay ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay toobada wuu ka aqbali ilaahay u soo laabo ilaahay adduunyada arji la'aan ku keenay ogow dardaarankeena wuxuu yahay meel kastoon joogno allah ka cabsano oon iska dayno dad kalan raaligelin baryahan dambe waxaa soo baxay xitaa social media waxaad arkaysaa macluumaadka qaar waxa lagu raaligelin dadka mooye walaa talbisu alxaqa bilbaatil xaq iyo baadilka yaa laisku darin adigoo wanaagooday oo dadka wax khayr u samaynaya ha laga daayo weli gabdhahina aad ku jecel lahay dadka aad u baraarujiyey ha la iska daayo inaad muusiga ku dartaan asalka muusiga bataatan kitaab wa sunna waa xaaraam muusig la dhegaysta qiyaamana dhegahaada kaanamaa wakhran lam yasmaca kitaabka qur-aanka maaragtay iyo sunnada iyo anaashiida iyo ha lagu kaaftoomo ha la iska daayo arrimahan aadka loo xayeysiinayo marka oo baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waxaa idinkaga tegey anuu cabdildiif aadana ammaano allah